horumarka dalku waxa uu ku jiraa qoyska oo hagaaga. Hagaaga qoyskuna waxa uu ku jiraa lamaanaha oo aqoonta qoyska yeesha. Haddii ay lamaanuhu aqoonta qoyska yeeshaan, waxa ay soo saarayaan ubad tayo leh oo si wanaagsan loo barbaariyay oo kaalin kasta oo ay nolosha ka galaan sida ay tahay uga soo baxa, dabeetana horseeda horumarka dalka. geed fariisuhu waa hawlgalka la qabto marka la doonayo in la isku xalaaleeyo laba qof oo kala jinsi ah oo aan marka hore isku banaanayn. Waxa gudboon in marka ay labada qof soo go'aansadaan inay isguursadaan in ay tukadaan salaada loo yaqaano salaatul istikhara. Salaatul istikharaduna waa mid ay diinteenu inoo sharciyeysay oo ay ugu tala gashay in uu qofku tukado xilliyada go'aanada adag gaadho. Nabigu waxa uu yiri sallallahu alayhi wasallam xadiis micnihiisu ahaa ma hoogo qofka salaatul istikhara tukada mana murugoodo qofka dadka la tashada. Marka salaatul istikharadu sidee u dhacaysaa? Waxay u dhacaysaa sidan uu Nabigu ku sheegay xadiiskan soo socda. Nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam haddii uu qof idin kamid ah arrin go'aansado ha tukado laba ragcadood dabeetana ha akhriyo ducadu way dheereed ee waxa ay ka bilaabmaysay Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr khayrun li fi dini wa ma'ashi. Dabeetana ducada ayaa uu qofku dhameystiraya. Haddaba geed fariisuhu waxa uu ka kooban yahay 4 tiir oo 4 tiir haddii aanay meesha ku jirin meherku ma dhacayo. 4 tiir waa 4 tiir ee aanu la'aantood meherku dhacaynin. Tiirka koowaadi waa siiqada ama ku dhawaaqista hadalka, in la yiraahdo inantaada nasii iyo waanu ku siinay, taas ayaa siiqa la yiraahdaa. Tiirka labaadi waa tiirka ah in ay lamaanuhu iska raali yihiin. Marnaba diinteenu ma ogola in inanta lagu khasbo nin aan raali ka ahayn oo lagu yiraahdo duciya hawaar kala dooro, amaba ninka weyn ayaa ku dhaqi kara, amaba uu ninku yiraahdo idinku ii meheriyo aniga ayaa qancisan doonay waayo waa inan yar oo waa aragnimo badan ma laha. Ibn Abbas ayaa waxa uu leeyahay radiyallahu anhu nabiga waxa uu sallallahu alayhi wasallam laba dumar mid carmal ah iyo mid gashaantiya. Labada dumar ahba waalidkood waxay ku khasbeen in aanay doonin. Nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu sameeyay meherkooda uu buriyay. Wuxuu yiri meherkaas waxba kama jiraan. Sidoo kale Ibn Abbas waxa uu leeyahay gabadh ayaa waxa uu soo wada geed fadhiistay nin faqiir ah iyo nin taajir ah. Inantu waxay doonaysaa ninka faqiirka ah, waalidka inantuna waxa ay la doonayeen ninka taajirka. Dadka Nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam u guuriye cidda ay jeceshahay, cidda ay raalida ka tahay, waayo lama arag laba qof oo isjecel wax kaga wanaagsan inay isguursadaan. Xadiiska micnihiisu wuxuu ahaa dumarka ha u guurinina ilaa ay iyagu ogolaadaan. Tiirka saddexaad ee uu ku fadhiyo meherka iyo geed fadhiisuhu waxa weeye laba marxaati. Tiirka afraadna waxa weeye inanta wiligeeda ama cidda mas'uulka ka ah. Labada qolobo waa inay noqdaan goobjoog xilliga uu meherku dhacayo. Sababtuna waxa weeyaan si aanu nin walba isaga soo geed fadhiisan inanta isagoo aan diyaar u ahayn inuu mas'uuliyadda guurka qaado, dabeetana uu hadhow halka ku dayaco inanta. Nabiguna wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam xadiis micnihiisu ahaa meherku ma dhacayo ilaa la helo inanta wiligeeda ama cidda mas'uulka ka ah iyo laba marxaati. Marka uu meherku dhaco kadib waxa la inoo suneeyay in aynu muujino oo aynu cid walba ogeysiino guriga cusub ee dhismay. Nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam xadiis micnihiisu ahaa wada hadalka qarsada geed fariisiga iyo meherkana muujiya. Sidoo kale geed fariisiga waxyaabaha ka dhalanaya waxa kamid ah in uu ninku ku waajibtay inuu meherka gabadha bixiyo. Meherku waa xaq ay gabadhu leedahay, waana mid ay tahay inuu ninku bixiyo. Waxa la shardiyaa inaanu meherku noqon mid qaali ah ama mid aad u sii jaban, waa inuu noqdo mid dhexdhexaad ah. Sidoo kale waxa wanaagsan inuu ninku markiiba meherka iska bixiyo, gabadhuna ay meherka markiiba ka aqbasho, waayo waa xaq ay leedahay. Waxa muhiim ah in la ogaado xilliga geed fariisiga shardi ma aha in uu nin sheekhi wiilkii gabadha isku meheriyo. Cid walba oo garanaysa siiqada iyo habka ay u dhacayso meherku waa ay isku meherin kartaa, balse sababta aynu hadii goor sheekhi u adeegsanaa waxa weeye waa ka barakaysan ka barakaysan diinta. aad baan u taageersanay. taas waxa weeyaan waxa sharcigeena ugu wanaagsan ee aan isleeyahay ku soo dabaqan. aad fikrad aad iyo aad u fiican weeyaan inuu meherka sharciga ka dhaco maxkamadda. sababtu noqotay waxa yaraanaya furitaanka iyo ku degdegitaanka kala taga dhalinyarada. Hadii ay jeclaan maxkamaddu gali lahayd hawshu way ka filan lahayd sidan oo furniinka faraha badan wax ma yimaadeen. Doortu way wanaagsanaan lahayd boo. Macnaha waxa ay noqon lahayd in la bixiyo liisan meher. casrigan aynu joogno waxa haboon inuu meherku ka dhaco maxkamadaha, waayo waxa tiro batay furiinkii waxa isguursanaya wiil iyo gabadh aan diyaar u ahayn ama uba islaamba inay mas'uuliyadda guurka qaadaan. Sidoo kale waxa tiro batay rag fara badan oo inta qurbaha naga yimaadaan hablaha dalkeena jooga guursada dabeetana
waajibaadkii xaasilnimo sideeda aan uga soo bixin oo hadhow marka ay noqdaan markaasun uu hadalkooda ugu dambeeyaba sidoo kale waxaa dhacda muran badan inuu ka dhasho dhaxalka iyo in la kala qaybsado hantida marka uu ninku geeriyoodo kadib maxkamadda waxaas oo dhan ayay dawo u tahay marka uu inanku gabadha guursanayo waxa ay hubinayaan inuu ninkan mas-uuliyadda qaadi karo iyo in kale waraaqa cadeymaha ayaa loo samaynayaa oo taas waxa ay fududaynaysaa in hadhow haddii uu ninku geeriyoodo dhaxalka si fudud loo kala qaato oo uu muranku meesha ka yaraado sidoo kale gabadha waxay helaysaa in uu xaqeeda sugmo oo haddii uu ninku dayaco oo uu mas-uuliyaddeeda ka soo bixi waayo waxa ay kala xidhiidhaysaa un maxkamadduna iyada ayaa waafajinaysa xeer ciqaabeedka ku habboona balse waxaa habboon marka hore in maxkamadaha dalkeena ku yaala ay fahmaan taas oo ay mawduuca sida ay tahay uga soo baxaan guurkiisa wax weeye waa heshiis axmar laba dhinac waa contract agreement enforceable dialogue between two parties labada dhinac marka konsunkooda inuu ku yimaado rabitaankooda guurku markaa rabitaankooda ku yimaado inay tagaan maxkamadii degmada codsi ay qortaan maxkamadda ay yeelo ay keenaan warqadooda dambi la-aanta toodii caafimaadka iyo toodii muwaadinnimo marka waxaa leedahay inay geed fadhiisiga waxaa habboon inuu ka dhaco maxkamadda halka ugu habboon adduunka laisku guursada waxay maxkamad weeye maana rag ma jirto dee mansoor iyo musafaari ma fiicna waxa weeye in guurku sugnaado si loo helo xaqiiqada guurka iyo si uu sugnaado ay maxkamadda sidoo kale awood leh maxkamadda haysan shahaado guud halkan markhaatiyadii la caddeeya kadib labada dhinac shahaadooyinkii guurka la kala siiyaa kadib hadhow kale meesha dana xaflada ku qabsadaan marka faa'iido taa ka dhalanaysa waxay kow inuu sugnaado guurkaasi oo aan noqon guur dayacmo tirakoobka saxa gala sanadka intaas qofka is guursatay laba waxay sugnaanaysaa xuquuqda qofka la guursaday gabadha oo meherka iyo xigeedu si fudud buu leeyahay taariikhda la guursaday cidii guursaday xigran wala haya saddex caruurteedu xuquuqdooda way helayaan hadday noqoto in dhaxalkiyo kale way helayaan لأن الصباح ويد تاريخ سنبو أي مشكلة وتبو تعالى وعلى مركني من يسمع قبسة حاجة مرة دحل وواحد دعوة يعني قيد كل يوم دعوة له قيس وأنت بنا دحل كده الدولة دي نسمع قبسة أذكر نسمع قبسة أنا قيس نسمع قبسة baryahan dambe waxaa facebooka ku soo badanaya sawirro meherka hortii ah oo loogu magac daray kamisuun meher ayaa soo socda waa sawirro lagu baahiyey facebooka marka ay wiilkii gabadhu intaanu meherkooda dhicin maalin ka hor si ay dadku wada arkaan run ahaantii waa sawirro aad looga soo shaqeeyey waxa ay wiilkii gabadhu si joogtaa u kala bedelayaan dharkooda sida oo kale waxay samaynayaan waxyaabo badan oo dhaqan xumo ah oo xaaraan ah oo aan loo ogolayn inay sameeyaan ilaa ay ismehersadaan mooyaan waxyaabaha ay samaynayaan waxaa ka mid ah iyagoo jidhkooda istaabanaya iyagoo isdhunkanaya iyagoo si yaroo cajiiba isku eegaya waxaasoo dhan waa dhaqan xumo inagu soo kordhay waana mid ay diinteenna kasoo horjeedo waxaa taa ka sii daran bulshadeenna oo arrintaa dhiirigelisa in qof walba la imaado marka ay sawirada facebooka kusoo baahiyaan halkii ay ahayd inay bulshadu ka idhaahdaan waa maxay sawiradan aad meesha soo dhigaysaan ilaahay ka baqa oo meesha ka qaada oo isa suga intaa yar ee isku xalaaloobaysaan ayaa bulshadii waxaabay igu comment garanayaan ama waxaabay faallo ugu bixinayaan hambalyo halkaa ka sii wada sawiradii bay soo wada dejisanayaan waawey ay soo wada download garaysanayaan deetana mid walba bulshada ka kale ayaa uu tusinaya taasi waa mid dhiirigelinaysa xumaanta waana arrin ay tahay inay bulshadu joojiso si aanay bulshadu sawirada noocaas u faafin inta aanay xalaasha isku noqon karo arrimaha facebooka horta sawirada la soo geliya aad iyo aad laga soo horjeedaa waayo de maxaa qofka horta marka koobaad aan kala qaaday arrin xaaraanay samaynayaan marka ugu horeysaba dadkan isguursan oo sameersan baa iyagoo sawirro isku dhegdhegsan baa lasoo dhigayaa facebookyada iyo social mediaha talabaado ah you never know waxa kugu dhici doona next 30 minutes waxaa laga yaabaa kala qofka inuu ka noqdo kale inuu ninkii gabadhii kala noqdaan oo kale wax ku dhici karaanba koos dadku week ka hor bay soo dhigi karayaan ama maalmo ka hor in arooska laga noqdo laga yaabaa waxa kale oo dhici karta qadarka Ilaahay inuu yimaado ah in dadku inuu labaanay qof dhinto marka waxa dhici karta ninkii gabadhiiba loo diido ya ama muddada week u dhaxeeya in wixii ay meherkii dhici waayaan taas waxay keenaysaa in meeshii waxaan dhaqan ahayn diin ahayn ay keenaysaa dadka qaarkood ayaa waxaa laga yaabaa inay ku doodaan maadaama labadan qof la siiyey oo ay waalidkood isku ogyihiin maxay dhaamaan laba qof oo isqoon yani caadiska ahayn dadka sidaas oo kale u doodaya waxaan u hayaa laga jawaabay jawaabta koowaad waxa weeyaan diiniya marka la eegayo labadan qof isku xalaal maaha si ay labada qof ay xalaal isugu noqdaan waa inay buuxiyaan 4 rukni ee geed fadhiisiga 4 rukni waxay kala ahaayeen siiqadii oo ahayd hadalka iyo sida uu u dhacayo labada lamaane oo iska raali ah weligii iyo labadii markhaati iminka hal shardi un bay buuxiyeen oo ah labada qof oo isku raali ah balse 3 shardi ayaa meesha ka maqan sidaa daraadeed labada qof marnaba isku xalaal ma ah jawaabta labaad ee aan u hayaa waxa weeyaan
miyaanay fududaynba labadan qof inta aanu geed fadhiisigooda dhicin inay si fudud kala tegi karaan? imise dhacdo ayaynu soo maqalay ama imise dhacdo ayay qaarkeen u soo taagnaayeen oo wiilka iyo gabadha iyagoo heshiisa dabeetana maalintii geed fadhiisiga ay halkaa ku kala noqdeen. sidaa daraaddeed waxaa habboon lamaanuhu inta aanu dhicin geed fadhiisigu inay ka fogaadaan wax kasta oo diinteenna suuban kasoo hor waxyaabaha diinteenna suuban kasoo horjeedana waxaa ka mid ah sawiradan sida anshaxxumada leh loo soo gelayo ee lagu faafinayo facebooka iyo baraha ay bulshadu ka wada xidhiidho.